Qarxii ugu weynaa ee qarniga 21aad ayaa Beirut ka dhacay. Ma jiro qof ku nool oo sheegi kara halkaa waxa ka dhacay wuxuu yahay. Qaraxa waxa uu ku bilowday qaraxyo yaryar ilaa markii dambe uu noqday wax aan magac lahayn. Qaraxan waxa uu baabi'iyay dekedda weyn ee Beirut, waxaana la waayay halkaa dhismooyinkii ka ag dhowaa. 10 kiiloomitir iskuweer ayuu burburiyay qaraxani. 240 kiiloomitir meel ka fog Kobros, jasiiradda ku taala badda dhexdeeda ayaa laga maqlay dhawaqa qaraxa, waxaana lagu tilmaamay qaraxii ugu weynaa ee dunida soo maro. Khubarada qaraxa ayaa sheegay inuu cabirkiisu ahaa 3.5. dhaawaca iyo dhimashada qaraxan uu geystay ayaan weli laga soo bixinin wax ifafaale ah. hase ahaatee saxaafadda ugu waaweyn dunida ayaa qoraya qaraxani inay ku dhinteen 357 qof, halka dhaawacu 4,000 uu gaaraya. hase ahaatee wararka isa soo taraya ayaa sheegaya dadka dhismooyinka hoosteed ku jira lasoo bixinayo dhimasho kale inay jirto. ilaa hadda lama xaqiijinin dhimashada iyo dhaawaca qaraxa uu geystay. muwaadiniin ayaa ku dhintay dalalka kale ee dunida. Jabaan, Australia waxaa ugu dhintay muwaadiniin gaaraya 13. halkaa waxaa ku sugan arday badan oo jaamacadaha dalka Beirut caasimadda Beirut wax ka barta. gurmadkii ugu weynaa ee caalamka ayaa halkaas ka socda. isbitaalada Beirut waxaa buux dhaafiyay meel kasta dhaawac yaala. dowladda ayaa amartay in ay soo gurmadaan dadka gobolada jooga. Qatar ayaa noqotay dowladdii ugu horeysay ee gargaar ku dhawaaqda. gurmadkii ay ugu horeeyay ayaa caawada saqda dhexe la filaa inuu soo gaaro. Kuwait, Ciraaq, Mareykanka, Ingiriiska, Ruushka, China ayaa ku dhawaaqeen inay gurmad soo gaarsiin doonaan Lebanon. shacabka Lebanon ayaa ku wareersan arrintaani kana naxsan. ilaa hadda cid meel isku sheegta ayaa la la'yahay. qaraxan waxa uu ka dhashay kiimika lagu keediyey dekedda Beirut ugu weyn. dad dowladda u hadla ayaa sheegeen qaraxan inuu ka dhashay kiimikada dekedda lagu keediyey, taasoo uu ahaa 257 tan. madaxweynaha dalka ayaa ka hadlay Majel Ain waxa uuna sheegay 3 maalin in calanka Lebanon hoos loo dhigo. waxa uu kaloo ku amray in la bixiyo lacag gaaraya 100,000 oo euro, lacagta liiro ee dalka laga isticmaalay Lebanon. waxaa kaloo uu amar ku bixiyay in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka dhibaatada gaartay. caalamka oo arrintaas ka argagaxsan ayaa gurmad xooggan wada. baraha social media ayaa aad looga hadlaya qaraxii ka dhacay Lebanon, waxaana lagu tilmaamay qaraxii ugu dhimashada badnaa ee dunida soo maro. qaraxan iyo arrimaha ku saabsan xogahooda way isa soo tarayaan had iyo jeer. wixii ku soo kordho waa idiin soo tabin doonaa. mahadsanidin. halkaan naga daawanaysaan waa Somali Media Action. hadday tahay markii ugu horeysay subscribe noo saar dhanka Facebook ee Somali Media Action. follow and like and share and commentina ka bixi. mahadsanidin.